أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وأنا السلام يا عمل البوت جوكتين كسودو. هذا موضوعنا لبا مانتين إني لو ذاقو موضوع صايقة حسوسين إن حسوسين وناقي يا خيرك إن شاء الله. dad muslima haddaan nahay, dad muuminiinana waxaa qurux badan inaan mar walba khayrka isxasuusino. maadaama maanta inagu soo fool leedahay bishii ramadaan ee barakeysnayd, maalmo khayr badan aan ku jirno, runtii ayna dadku inta badan ay khayrka u degdegaan maalmahan barakeysan, iyadoo fiican tahay in dadku mar walba ay khayrka isfaraan, mar walba khayrka hadday sameynayaan iyo hadday sidoo doonaba ha noqdee inay mar walba ay wax joogta ay noqoto, maadaama dad muslima nahay inay nolosheenu ku salaysnaato wanaagga iyo khayrka iyo samafalka wanaagsan iyo ihsaanka bini'aadanka u sameynayno. haddana maanta waa xilliyo barakeysan wax lagu jiray. waxaan jeclaan lahaa walaalayaal inaan nila wadaago oo niila xasuusiyo, haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed oon ka tirsanay bulshada caalamka, waxaan nahay dadka ugu tabaalaysan ama dadkeenu inta ugu badan ay tabaalaysan yihiin, inta ugu badan ay dadku ay ku nool yihiin below the poverty line, تحت خط الفقر oo $1 maalintii per family, inay $1 ka in ka hooseysa ay dadkeenu majority ay ku nool yihiin, dadna ayna haysanba. dad badan waxaa jiray nagu ag dhibaatoonaya. maanta waxaa laga yaabaa jaarkaaga haddaad ku urgishid inaad arkaysid intaasoo qoys oo maanta xaaladooda aad u adag tahay oo nolol maalmeedkii la istaragal garanaya ama la kadeedan, dad haysta dad xanuunsanaya. marar badan waxaan aragnaa dad social media la soo dhigo leeyahay qoys dhibaataysan mar walba waynu aragnaa. laakiin se waxa jira kumanaan iyagoo kala oo la ogeyn ayaa jira, dad badan oo guriyooda ku jira ayaa jira oo haysan waxay maanta karsadaan xataa yaa dafa. inagu ma hayno dadkeen waruma hayaan. inta ugu badan waxa laga yaabaa gurigaaga noloshaada ay ku mashquulsan tahay, jaarkaaga wax ka dhacay waxay ku sugeynaan war haynin. waana diinteenu inaga nahisay weeyaan ay noo diiday. nabiga Caleey salaatu wasalaam qof jaarkiisii oo gaajoonay in dhari ku saxa ima rumeyn, qof diinteeda rumeeyay maaha. jaarkuna xaq weyn bay kugu leeyihiin, qaraabadaada saasoo kale. waxaa laga yaabaa inay jiraan dad badan oo qaraabadeena oo maanta nolosha la istargal garaynay. jaarka waa sidaas. haddii qof walba naftiisa iyo maskaxdiisa uu sheegayo maanta wixii aad ku dhaanto qoyska jaarkaaga ama qoyska dhacankaas wixii aad ku dhaanto, balse oo walaalayaal dad isku naxariisto iska fikiraya aan nahay, marnaba xaaladdeenu saan may ahaateen, marnaba lama arkeen dad mar walba saa u dhibaataysan. dad waxaad arkaysaa waayeela, hooyooyin iyo aabayaal da' oo dariiqaad ku arkaysid oo ciidanan haysan oo dawarsanaya. damiirkaaga soo noqonaya, sin niyadaadu soo noqonaysa, waad naxaysaa, runtii waad naxaysaa. waxaad maalintaas siisayna horta laga yaabaa maalintaa inay wax u noqoto, laakiin wax noloshiisa wax ka bedelaya maaha. dadkeenu waxay u baahan yihiin in noloshooda wax laga bedelo, ay u baahan yihiin. badanaa dowladaha ayaa dadka noloshooda bedelo wax ka qabta. dadku haddayna dowlad hagaagsan haysanin, dadku inay iyagu isku tashadaan oo isku fikiraan baa qurux badan. laakiin dadkii isku fikiraya walaalayaal, nolosheena wixii muhiimka ahaa intaan ka aamusnay ayaan waxyaabo muhiim ahayn maanta dhan ku mashquulsanahay. baraha bulshada Soomaalidu ku xiriir haddaad u fiirsatid, wax wanaagsan oo la soo dhigi way yar tahay. wax aanan aadanka noloshiisa aanan taabanin ayaa maanta dhan lagu mashquulsanaanaya oo maanta dhan laga hadlaya. wixii taabanay nolosha bini'aadankana waa la iska agmaraya. ma arkaysid qof ka hadlaya. maxay taas ku dhacday walaalayaal? zaman adag baa lagu jiraa, zaman alfitan baan ku jirnaa, waa calaamaad alqiyaama. waxyaabana arkayno oo dhani, dhimashadii baa badatay, xanuunadii baa batay, waxaan oo dhan waa calaamad saaca weeyaan. qiyaamihii baa soo dhow, waa calaamad saaca. laakiinse dadku wax badan ma dareensana. fitankii waaweynaa ee dajaaliyo kamid ahaayeen baa arkay dee calaamada saaca kubra, laakiin ku yaryaraayo dhan waan wada aragnayba soo dhamaanayaan. dadkeena waxaan jecelahay wallaahi dal iyo dibadba inaan u fiirsano dadkeena danyarta inagu dhex nool, inagu dhex dhibaatoonaya. runtii inaan u dhundaloolaano oon wixii aan la qaban karna aan la qaban.
hadday qolo walba xaafaday degantii iska abaabusho qolo walba hadday meeshay degiin iska abaabulaan oo yiraahdaan dadkeena aan unu kuurgalna aadkay u dhibaataysan oo wax yaroo badneen xataa bishii la isku dardaro la isku ururiyo waxbay u taraysaa bil walba waxbay u taraysaa noloshooda waxbay ka bedelaysaa wax hal mar qof la siiyo waxba uma tarayo uu ka dhamaanaya laakiin waxa fiican in loo fikiro dadka dhibaatada haysata ee xataa aan shaqaysan kareynin in shaqo abuur loo sameeyo wax yar loo ururiyo mar bareer qolo walba hadii isku abaabusho xaafada xataa aan ka hadlay xaafad walba qof walba xaafadu galo haduu isagu ka bilaabo ilaa wax khayr oo filintiri oo rasiidkaaga aakhirana wax weyn ka bedelaya adduunyo aakhiraba wallahi ku fiican haduu qofku ka fikiro mar walba inuu u naxariisto qof walaalkii oo dhibaataysan oo niyad ku haysan adduunyo aakhira waa liibaanisa haddii dadku isku bilaabaan sheeko noocaas oo kale la sameeyo wax badan baa laga bedeli karaa nolosha dadkeena laakiin waa la naga soo jeediyay aad iyo aad waa naga soo jeediyay takaaful ijtimaaci wax la yiraahdo ayaa fiican dadku muslimiintii hore way lahaan jireen miskiin gaajooniya lama arki jirin bayt maal muslimiin baa jiray oo maaliyado kala ah maaliyadaasi lacagta inta ugu badan waxay ku bixin jireen dadka masaakiinta ayaa la siin jiray bil walba lacag ka qaadan jiray sida nimanka dawladaha inta Yurub iyo Mareykanka dawladaha horumaray maray ay sameeyaan ayda dadka ana shaqaysan kareen iyo dadka ay siinayaan oo kale ee muslimiintuna waa ay ahaayeen fikirkii muslimiinta bay ka qaateen bayt maal muslimiin baa jiray oo dadka cid miskiin oo baahan ma bay jirin dadkii xukaamtii muslimiinta ahaa soo maray habeen oo dhan bay saa u wareegi jireen si ay u arkaan yani bal inay arkaan qof baahan inay soo arkaan ay habeenkii oo dhan saa u wareegi jireen waxa jirta sheeko laga soo wariyay Umar bin Khattab radiyallahu anhu khaliifadii labaad ee muslimiinta inuu habeenada kamid ah isagoo wareegaya oo maqlay ubad ooyaya qaylo iyo dab meel ka baxaya meel yar oo magaalada ka yara baxsan isagoo habeen oo dhan wareegi jiray bal inuu arko in dhibaataysan intuu u tagay wuxuu arkay hooyo biyo kulkulanaysa caruurtiina ooyayaan markaas uu keenay maxaa ku dhacay markaas maxay la ooyayaan markaas waxa ka tir way gaajoonayaan biyaha mandistida ugu karkarinaya intay ka seexanayaan leeyahay aan cuntaan inii karinaya say ooyayaan aanu leeyahay cuntaan inii soo karinaya bay ku seexdaan bay tir habeen walba intuu ooyo limada xajisan kari waayay uu socday oo cunto u keenay oo cuntadii raashinkii wixii oo dhan waliba dhabarkiisa ku soo qaaday oo asxaabi la socday oo ka yiri karana ka qaadiyo yiri maxaad iga qaadi ma birtoola dambigeyga maada iga qaadi doona bari aakhiro maada iga qaadi doona buu dambigeyga idda aan xambaarsanaaday kiyo ooyay sidii buu ugu tagay sidii uu raashin waxa isagu u soo kariyay waliba gacantiisa ugu soo kariyay oo ciyaalkii ilaa inta ciyaalkii cunayeen seexanayeen buu la joogay sidaas ay hadeed noqdeen reer looga warhayo dadkii saasay haayeen dadkii muslimiintii saxdii waadii hore soo maray qaar badan isaga lamid ahaa soo maray muslimiinta khaliifada Umar bin Khattab dadkeena maantana cid baa adduun war uma hayaan ka waxaystay adduun dadka kala war uma hayo kiyaan waxaysanadii u dhibaatoonaya way naga arkayna xaaladooda abaaraha imka dhacay roobabkii way raageen durba dad bay xoolii ka baqbaqtiyeen xoolii ka dhinteen muxuu haay oo yani anigu waxba aanan haysanin yani dhibaatadu wallahi way badan tahay markay dadku dhamaadaan ee xooluhu dhamaadaan bay dadku baraarugeen oo la oran abaar baa dhacday isku soo yaaca kaaliya lacag hala ururiyo inta ka horeysa lagama sii fikirayo lama oranayo dadkan de warba looma hayaba cid war u haysaay ma jirto walaa dawlad baa warhayn walaa cid kale oo dawlad haysan ma jirto dadka ka warhaynaysi walaalayaal magaranaysin marka maanta mawduucay waxa weeyaan just ana soo koobaya aan iska warhayno isku damqano irhamu min fil ardi irhamkum min fis samaa isku naxariista ilaahay baa inii naxariisan isku damqada ana isku damqano weey qof walba inuu naftiisa ka soo qaado qofka dhibaataysan naftiisa oo kale ka soo qaado weeyaan walaal ilaahay naga dhigo kuwa khayrkaas fara laakiin waxaan runtii jeclaan lahaa inaan mawduucaas la dhageysan qof kasto oo dhageysanaya oo khayr jecel xataa iska niyo runtii inaad isku daydid dadka ku dhow ee jaarkaaga agtaada ee dhibaataysan inaad u kuurgashid walaal inaad u kuurgasho dibtooda aad ogaatid aad kaliya waxba kama qaban karaysid laakiin dad baad la kaashan kartaa dadka jaarasha dadka ku dhow dadka familiga inta la kaashatad oran kartaa dadkaas aasa u dhibaataysan maxay noo qaban karnaa
hal dollar iska qaadiin haday ugu badan $5 la iska qaado ayaa wax taraysa oo dadka wax u taraysa oo noloshooda wax ka bedeli karta oo inta loo ururiyo la siiyo bishii wax loogu iibiyo ama raashin ama wax yar oo hal mar inta la isku dardaro wax yar oo buuran oo hal mar la isku dardaro ayaa wax loogu qaban karaa oo la oran karaa ku shaqeysta wax loogu sameyn karaa oo kolba qolasaas oo kale loogu sameyn karaa inaan baahida iska soo saarno inaan iska can qabano walaalahay diintayna faras inaga noo fiicantii adduunyo aakhirab inaan ku dadaalno waa lagaba maarmaan waa muhiim weeyaan inaanan u deymo la'aan in aan mar walba niyadeena aan ku hayno cid kasto i dhageysanaysa waxaan leeyahay ama kula talinayaa dadkaaga u damqo jaarkaaga iyo dadka qaraabadaadana ka bilow saasaan in ilaahay aan isku damqano waa waqtigii khayrka nolosheena oo dhan khayr inay noqotaa muhiima sanadkoo dhan inaan iska warhaynaa muhiima haddii ayna cid waxay noo qabanaysaa ayna jirin inaan inagu wax qabsano inaan inagu intaan isku tegno gacmahooda jir wax ku gooyaane dadku iyagu waxa qabsadaan oo isku tashadaan oo qolo walba halkay joogtid ka bilow qof kasta halka uu jooga ka bilaabo isagoo isku bilaabo oo gurigiisa ka bilaabo charity begins at home waxay ka bilaabantaa sadaqadu waxay ka bilaabantaa guriga dadkaaga horta ka bilaabanta dadkaaga ka bilow jaarkaada ka bilow kuwa ku sii xiga ka bilow sidaas u socota saa u socoto cid baahan la inaga arki maayo laakiin maalinta ay madarqadu madaxa ku dhacdo ee dhibaatadu ay badato ay dad gaajo u dhintaan ayuu baraarugana la gaaja loo dhintay saambaana walaalahay inta hore oo dhan cid daqiiqis cid hadlaysa ma arkaysid aanu damqana dadka walaalaheen inagu dhax dhibaataysan waayeelka inagu dhax dhibaataysan caruuraha darbi jiifka inagu dhax dhibaataysan ilaahay maanta dhimano wayna weydiinaya runtii waa wax leena weydiinay weeyaan waxan waa wax yar iyo wax weyn ilaahay dadka cidna wuxuu ma waayin qofna wax ilaahay uma waayna dadka la isku itixaamaya kamaalka haysta maalkiisa lagu itixaamaya sidoo ka yeelay dadka ugu tara la eegaya kana waxaysan duruuftaas lagu itixaamaya sibirkiisiyo bal sidoo ula diil garay la eegaya qof walba waxba lagu itixaamaya nolosha ka xanuunsan ee xanuunkaas lagu itixaamaya qof faraxsan iyo qof ana maanta faraxsaniin oo dhibaataysan ba mid walba xaaladda ku jiro waa itixaan weeyaan because adduunka oo dhan baa itixaan loo yimid ma jirto wax kale liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waxa la nii dhibaateynayaan si leeni arko kiina khayr sameeyad ee wanaag adduunka kaga taga intaad nooshahay raad wanaagsan ka tag raad wanaagsan oo dadkaagu kaaga daydaan ka tag iyo ubadkaaga iyo dadkaaga ihsaanku oo horeeyo ilaahay dartii adoo ilaahay dartii u qabanaya dadka walaalaheena inagu dhax dhibaataysan aanu damqano ilaahay dartii waa shaqo falantiri laakiin xagga ilaahay wax weyn ka aday aakhiro adduunba ilaahay kugu anfacay xataa adoo nashirin ku dirsaneen dhaqaaqeerood u sameeyay qurahaato oo dad isku keento hada adoo awoodin xataa ayaa sadaqad ku ah sadaqaduna wayna ognahay faa'iidadeeda xanuunkii daweysaa balaayadii baajisaa aakhire ku noqonaysaa in te waxaad ku fakatid oo rasiidkaaga aakhirada ayaa ad wax weyn ugu tagaysa intaasaan walaalay niga tagayaa waxaan ilaahay oo nagu soo celcelinayaa aan isku naxariisano dadkeenana aanu damqano dhibaatadu way nagu badan tahay dadka waxaan nahay caalamka ugu dambeeya developing world baan ku jirnaa oo caalamka aan soo koreeya developing waa waliba ku ugu sii hooseeya ayaan ku jirnaa cid kana haysi cid wax u qabanaysa aanan haysan aan inagu wax qabsano ilaahay bil aadan buu naga dhigay aqli weyn siiyay saxdii qaladkan garna dad muslimaan nahay wax badan waan qabsan karnaa haddaan isku tashano خير باني رجعني لمانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته